tan ay kala socoteen channelka CRF samee casharkeena maanta dual la waxaan ku arki doonaa dual alternative decision structure kani hore waxaan ku soo aragnay casharkeena hore waxaan ku soo aragnay single alternative decision structure oo sheegayo ama ah in hadii sidan oo kale condition lagu siiyo conditionkaas hadii true noqoto sidaan samee hadii true noqo weysana ka bood marka hal xabo oo kaliya ayaa la kala dooranayay markaas hadda laakiin waxaan rabnaa in condition kii la helo hadii true noqoto wax la sameeyo hadii ay false noqotona wax kale la sameeyo marar badan marka kan waa la isticmaalaa meelaha qaar laakiin marar badan waxa u baahan tahay sidaan hadii dhacdo sidaan samee hadii dhici weysana si kale oo la sameeyo in la helo marka dual alternative decision structure ama laba shay oo la kala dooranayo ayaan u baahanahay waxa kale oo la dhahaa if else statement syntaxka marka if else statement waa sidan tii hore maxay ahayd if condition statementskii aragtay statement 1 statement 2 iyo wixii la midka ay ahayd tii hore single-ka dual-ka laakiin waa sidan syntaxkiisa if condition laba dhibic statements hadii hal iyo laba iyo wixii la midka else laba dhibic other statements marka laba shay la kala dooranaya markan laba shay la kala dooranaya hadda waxa aragnay markeen noogu dambeysay aan barnaamijkan rangareynay in hadii aan 9 ka bato average-kaygu inta la sameeyo haduu ka badan waayana okay waa fiican tahay la idho kale ay lafteeda waxa uu maleeyaa waa iska fiicnaan lahayd hadii aan tijaabino barnaamij kale ayaan qoraya ka iska tiraya waxaan rabaa program user-ka weydiinayo inuu soo geliyo score uu keenay meesha hal soo gelinay waxaan rabaa average uu keenay kale inuu soo geliyo ka bacdina aan u sheego qofkaas inuu baasay iyo in uu dhacay oo kale iyo wixii la midka ah hadii aan marka get the average marks marka average marka aan ma xisaabinayo isku duuduub ayaa user-ka ii keen aan leeyahay waxaan leeyahay score variable abuuraya is equal to integer ubedelan leeyahay sidii aan hore u soo aragnay input enter waxa soo gelisaa your score-kaagii ayaan leeyahay soo geli user-ka marka uu soo geliyo score-ka waxaan rabaa inaan dhaho score-kii bal tijaabi waxa ku jira waxaan leeyahay marka if score uu ka badan yahay ama la eg yahay conton score-kii hadduu conton ka bato ama uu la ekaado hadduu la ekaado dabcan conton ka bilaabayna soo ma waxaa soo daabacdaa waa baastay oo kale ayaan leeyahay waxaa soo daabacdaa you have passed dabcan waa malaa'ikta congratulations you have passed waa dhihi kartaa haddii aan fiiriyo else markaan qoro laba dhibic markaan qoro automatically wuxuu geynayaa gadaal ayuu geynayaa wuxuu fahmayaa else to inayn hoos imaanin iftan dabcan mar ay soo simaanayaan way jiri doontaa laakiin hadda ma hoos keeni rabo waxaan leeyahay halkana printy haddii uu conton ka yaraadana waxaa soo daabacdaa sorry you have failed waa dhacday ayaan leeyahay this time next time ayuu dabcan isku day doonaa ayaan rajaynaynaa waxaan ku darayaa si aan ku tuso mar walba statementigan dambe in la daabacayo the nd hadda hadaa fiiriso programkan haddii aan ku laabto wuxuu dhahay score soo geli waxa ka soo qaadaa wuxuu soo geliyay 73 markuu user soo geliyo wuxuu leeyahay 73 ma ka badan tahay ama la eg tahay conton jawaabtu waa maxay ha waa dabcan way ka badan tahay haddii ay ka badan tahay wuxuu dhihi doonaa you have passed tan maxaa ku dhacay marka tan waa laga boodayaa the nd ayuu soo daabici doonaa marka dual alternative structure-ku muxuu sheegayaa laba statement ayaa la kala dooranayaa laba path ayaa la kala dooranayaa ma tan ayaa la aadaa mise tan ayaa la aadaa wuxuu dhihi doonaa marka 73 ma ka badan yahay conton ha intaan samee haddii jawaabtaan ha noqoto marka waxaan hore u soo aragnay condition yes or no ay noqonaysaa true or false yes haddii ay noqoto shaqadan qabo no haddii ay noqotona shaqadan qabo hadda waxay ahayd yes haddii ay noqoto shaqadan qabo no haddii ay noqotona ha qabanin kani hore single-ka hadda laakiin yes haddii ay noqoto shaqadan qabo no haddii ay noqotona shaqadan kale qabo laba xaba marka la kala dooranaya that's why loo dhahay dual alternative decision structure haddii aan soo geliyo dhan kale 43 haddii aan soo geliyo 43 ma ka badan tahay conton maya waa laga boodaya statement-kan ayaa la daabacayaa tan ayaa la daabici doonaa waxa la dhihi doonaa sorry bundada aad soo gelisay waxay keenaysaa inay dhacday ka bacdina the end marka statement-ga laakiin iyada maxaa ku dhacayo
haddii tan la fuliyo tan lagu xijinaya haddii tan la fuliyana tan lagu xijinaya marka labadan statement la kala dooranaya tan iyada mar walba la fulinaya sababtoo maxay because iyada ma hoos timaado ifta iyo wixii la midka ah sidoo kale aad isaga fiiri indentationka iyo sidii soo hoos imaanayaan else to ma hoos timaado ifta way isla siman yihiin laakiin statementska labada statement ayaa halkan kala imaanayso marka labada statement la kala dooranaya aan try dhaho halkan execute gare run selections wuxuu dhaha waxaa soo gelisaa scorekaaga soo geli waxaan leeyahay waxaan soo geliyey 73 wuxuu leeyahay you have passed the ending marka sorry you have failed lama soo daabicin sababtoo waa maxay because iyadoo else hoos timaada haddii false noqon lahayd ayaa la fulin lahaa hadda marka la ku celiyo wuxuu leeyahay scorekaaga soo geli 45 ayaan keenay haddii aan dhaho enter wuxuu leeyahay sorry you have failed the ending lama dhihin waa baastay sababtoo waa maxay because marka adiga waxaa laga yaabaa in kugu quflanta 45 waa lagu dhacaa 3 waa lagu baastaa laakiin programka sida aan ugu sheegnay ayaa sidaas ah haddii aan dhihi lahaa halkan haddii aan dhihi lahaa ka weyn tahay ama lacagta meeshaan dhahay haddii aan dhihi lahaa ka yar tahay haddii aan dhaho ka yar tahay if score is less than 50 hadduu content score ka yar yahay waa baasta dheh haddaa fiirso programkii markaan ran dhaho haddii aan geliyo 67 wuxuu leeyahay sorry waa dhacday 67 ma dhacay haddii aan ku celiyo oo aan dhaho waxaan keenay 23 wuxuu leeyahay you have passed waa baastay sax miyaa marka sax maaha laba marba laakiin waxaa keenaya qaladka waxaa keenaya aniga ayaa qaabkan programka u qoraya qaldan logiga aan isticmaalay ama qaabkan wax u xalinayay ayaa qaldan mararka qaar kugu imaan kartaa marka programkaagii isaga ma aha waxa qaldanaya aniga ayaa qaabka aan u qoray ama u fahmay ayaa qaldan marka meeshii aan rabay ma ka weyn tahay ayaa waxaan dhahay ma ka yar tahay marka markaas kale ku imaan kartaa logic error laha errorska iyo gadaal nooga imaan doonaan haddii aan liraa noocyadiisa iyo sida loo xaliyay iyo wixii la midka laakiin waxaa fahmaysaa in programku waxa u sheegtay qabanaya ma ahane isagoo aqli gooniyuhu leeyahay uu isticmaalaya ma jiro marka isagoo hadda sida u sheegtay ayuu uu fuliyay adaa waxa u sheegtay haddii userku waxa uu keenay content ay ka yaraadaan haddii content ay waxa uu userku keenay haddii content ka yaraadaan waxa dhahdaa waa baastay haddii content ka bataanna waa dhacday dabcan saas ma ahayn sidaan rabnay maxay ahayd haddii ay waxa uu userku keenay ay ka badan yihiin ama la eg yihiin content waa baastay haddii kalena waa dhacday ayaan rabnay inaan dhahno tusaale kale oo quick ah ayaan rabaa inaan sameeyo meeshaan isticmaalay waa baastay iyo waa dhacday aan tijaabiyo tusaalahan waxaan rabaa number in aan userka soo geli dhaho sida haddoo kale numberka uu soo geliyay ayaan waxaan rabaa inaan sheego in uu yahay negative iyo positive kii uu yahay negative positive dabcan waa number eber ka weyn iyo number eber ka yar waxaan rabaa inaan dhaho userka waxaa soo gelisaa number waa iska tiraya dhammaantood waxaan leeyahay get the number waxaan leeyahay number is equal to integer input enter a number soo geli userku markuu number soo geliyo numberkii aan rabaa inaan jeegareeyo marka numberkan goormuu positive noqon karaa goormuuse negative uu noqon karaa positive wuxuu noqon karaa markii uu eber ka badan yahay negative wuxuu noqon karaa markuu eber ka yar yahay marka qaabka aad ku kala hormaray waxaan leeyahay if number uu ka badan yahay 0 eber hadduu ka badan yahay waxaa dhahdaa positive waay soo maa positive the number is positive dabcan iska soo gagaabina the number is positive ayaa dhihi lahayd else haddii kale print waxaa soo daabacdaa negative oo macnaheedu ay tahay 5 hadduu soo geliyo userka 5 ma ka badan tahay eber haa waa positive hadduu soo geliyo -3 ma ka badan tahay eber maya waa negative soo maa aan tijaabino si aan u aragno sida wax u dhacayaan wuxuu dhahay number soo geli 5 ayaan geliyey wuxuu leeyahay saan rajaynayay positive mar kale ku celiyo waxaan geliyey -3 wuxuu leeyahay negative waa sidaan rajaynayay haddii mar kale aan ran dhaho oo aan geliyey ka waran eber wuxuu leeyahay negative eber negative yaa marka negative iyo positive labadaba ma ahan inuu idhaho eber ayaa fiicneed soo maa haddii aad fiiriso cilad yar ayaa jirta meeshan waxaan bedel meeshan hadda negative hadday dhahay haddii aan dhaho halkan haddii ay ka yar tahay number hadduu ka yar yahay eber waxaa dhahdaa negative haddii kalena waxaa dhahdaa
positive waa bubsiinaya dabcan laakiin adigu maadaama aad ku xishan kartid oo boos gareyn kartid youtube ka daawanaysid adiga ayaa waqti fiican ku qaadan doona numberku hadduu eber keer yahay negative waa soomaa haddii kalena positive waaye aan sidoo kale u tijaabiye haddana 5 haddii aan dhaho sidaati dabcan wuxuu dhihi doonaa positive haddii aan dhaho minus 3 minus 2 na wuxuu dhihi doonaa negative haddii aan dhaho eber muxuu dhihi doonaa markan boos dheh ka fakar inta aan anigu aan jawaabta aan soo saarin boos garee isweydii number oo eber ah eber ma keer yahay eber haddii true noqoto dabcan negative aan dhihi doonaa haddii false noqotona positive aan dhihi doonaa marka logigaaga ku fiirin laakiin programka sida uu qoran yahay ayaa ku fiirinaysaa marka eber ma keertaa eber jawaabtu waa maya soomaan maya hadday noqoto muxuu dhihi doonaa halkan positive ayuu idhihi doonaa markii aan enter dhaho sababtu marka ma ahan uu positive ka negative ka idhahayo programka sida aniga u qoro waa bismiya u sheega waa su'aashan hadday true noqoto sidaan sameeyaan dhahay hadday false noqotona sidaan sameey marka labadii mar aan qorayba sidii aan rabtay aan u isticmaal kartaa laakiin wuxuu ku tusayaa eber inuu marna dhahayo positive marna uu dhahayo negative labada qaab aan u qoray ay ku xiran tahay because tan markay false noqoto tan uu fulinaya marka tan dambayso ayuu mar walba uu siin doonaa laakiin sax ma ahan soomaan maxaa lagu xalinayaa marka maxaa lagu xalinayaa meesha waxaan ka fahmaynaa 1 iyo 2 sidaan hadday dhaca sidaan samee haddii kale sidaan samee marmarka qaarna ma anfacayaan wax kale oo ka duwan ayaan u baahnaan karnaa xiisadeen dambe ayaan rabaa inaan ku sharaxo laakiin waxaan ku sii furfurayay maskaxda waxaan rabaa inaad ka fikirto maxaan samaynaynaa sidaan oo kale marka ay timaado sidee ku xallin karnaa haddii aad xalka soo heshay marka aad soo tijaabiso waxaa ku soo qortaa commentiska si akhyaarta kale iyo daawanayaan ay kula arkaan annaguna ogaanaa du'aalira inaad nala socotay in kale waa ku mahadsantihiin waqtigiina xiisad dambe ayaan ku xallinaynaa du'aalira wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh